dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay doonayso inay la wareegto dhulkaasi si ay uga dhisto saldhig ciidan waxayna amartay in meedadka laga saaro qabuurahaas. dowladda Soomaaliya ayaa shalay amartay in dadkii heladoodu ku aasan yihiin qabuuraha iskuul boolisiya ay kala baxaan. wasaaradda gaashaandhigga ayaa sheegtay in dhulka qabuuraha iskuul boolisiya ay u baahan tahay wasaaradda gaashaandhigga isla markaana ay meelo kale u diyaariyeen in dib loogu aaso. wasiirka wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya Cabdulqaadir Maxamed Nuur oo waraysi gaar ah siiyay telefishinka Universal ayaa eedeyn culus u jeediyey dowladdii hore uu hogaaminayay madaxweyne Farmaajo. jaamac oo ka hadlay xaaladda ka taagan qabuuraha iskuul boolisiya oo ay dowladdu amartay in lagala baxo meydadka ayaa sheegay in hadda laga rabo in laga dhiso xarun dan guud ah oo loogu adeegayo ummadda Soomaaliyeed sida uu ku dooday wasiirka. isagoo u jawaabaya siyaasiyiinta qayladhaanta ka muujiyay arrintan ayaa waxa uu sheegay in dowladda hore ay isku dayday inay burburiso qabuurahaasi iyadoo kale dana gaara balse laga diiday kadib markii ay ka hor yimaadeen culimmada iyo shacabka. xafiiska isgaarsiinta madaxweynihii hore ee dalka Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa sheegay inay ka jawaabi doonaan hadalka dowladda ka soo yeeray. qaar ka mid ah dadka heladooda ku aasan yihiin qabuuraha ee tegey goobta ayaa marka dowladdu ku sheegay inuu yahay mid aan laga fiirsan oo ay si weyn uga wada naxeen dadka Soomaaliyeed. dadkan oo qaarkood warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in markii ay tegeen qabuuraha si ay ula baxaan meydadkooda inay la kulmeen arrin kale oo ka sii yaab leh oo ah in warqad oggolaansho ay kala yimaadaan maamulka gobolka taasoo lagu soo qaadanayo lacag dhan $20 si ay ula baxaan meydka. ehelada qaar ayaa dowladda ka codsaday inay ka laabato amarka ay ku bixisiin meydadka laga saaro qabuurahaas maadaama aysan garan karin halka ay ku aasan yihiin dadkooda. taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya Sulub Axmed Firin iyo gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir Maxamed Yabo ayaa dhankooda warbaahinta u sheegay in qoysaska heladooda ay ku aasan yihiin qabuurahaasi ka gacan siin doonaan sidii ay ula bixi lahaayeen muddo ku siman 10 casho. haddaba dhanka kale khatar caafimaad ayuu leeyahay in meydka qabriga laga soo saaro waxaana ka mid ah habka loo marayo iyo sida la iskaga ilaalin karo in aadan ka qaadin wax caabuqa. taasna way adag tahay in dadka caadiga ah ay wax ka qabtaan. inta badan howlahan waxaa qabta dad aqoon u leh khubro caafimaad iyo dad kale. culimmada halkaas ka hadashay oo ay ka mid ahayeen Sheekh Cali Waajis iyo Sheekh Bashiir Axmed Salaad ayaa dhankooda sheegay in diiniyan marka ay dhinacyo badan ka eegeen tallaabada dowladdu ku dalbanayso dhulkaasi qabuuraha in laga saaro meydadka ku aasan inay waxba dhimayn. bilowgii bishii May ee sanadkan ayay ahayd markii ay soo ifbaxday in dowladdu ay u baahan tahay dhulka qabuuraha iskuul boolisiya meydadkana laga saarayo waxaana xilligaasi laga saaray qabuuraha meydka Allah u naxariistee Cabdi Muriidi Ajakis oo ay carruurtiisa meel kale ku aaseen. hase yeeshee xilligaasi dowladdu way beenisay inay amartay in meydadka laga saaro dhulkaas. wasaaradda gaashaandhigga ayaa ku eedeysay madaxweynihii hore ee dalka Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo kooxdiisa inay rabeen inay dhulkaasi ka dhisaan hoteelo balse ay ku fashilmeen maadaama ay wadeen dano gaara. dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay doonayso inay la wareegto dhulkaasi si ay uga dhisto saldhig ciidan waxayna amartay in meydadka laga saaro qabuurahaas.